رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وراها دمان كجر قولكان وأن سلام الله وأنت إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما أذكره ينوسى علي فرصة طيبك قيمك إن شاء الله. وحايونا ما أذكره وراني سعري صديقي ونرى كربة إن شاء الله تعالى. موضوع عن دقائق صوص عن وحي كتاونا وحسن الخاتمة كالمدعى معناها بيهي خاتمة إلهي مقفك وحياتيو يوناك إلهي علامة هذا يصداب تيرا يعني إن شاء الله حنسكد أنا سوق كولو الدعاء اللي يرعده هذا إن شاء الله موضوع كوحن استعرت قريسنا وصدن دقيقة إن شاء الله صدق هذا الزئنا سوق كولو يعني سكد الدعاء اللي يرعده. walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqina waafajiyo khaatimadeennana uu noo hagaajiyo. khaatima ama xusnu alkhaatima macnaheedu waxa weeye ilaahay inuu waafajiyo addoonka ama gabadha maaragtay addoonta ilaahay ah inuu ilaahay waafajiyo intaysan dhimin qofku inta uusan dhimin ilaahay inuu waafajiyo subxaanahu watacaala inuu macaasida iyo wax kasta ilaahay caradiisa keenaya inuu qofkaas uusan u dhowaan uu ka fogaado inuu ilaahay waafajiyo. sidoo kale ilaahay inuu waafajiyo inuu ilaahay u toobad keeno ilan binaayan baa waa la gafahayaaye dunuubtii iyo macaasidii iyo wixii ka dhacay ilaahay inuga toobad keeno oona qofka uu lahaado iqbaal amase inuu qof usoo jeedo uu yahay daacada ilaahay iyo acmaasha khayrka ah oo markaa kadibna uu saa ku dhinto isagoo ilaahay u waafajiyey macaasidii ka fogaaday ilaahay u toobad keenay daacadii ilaahayna qaadbisan inuu saa ku dhinto ayaa xusnu lkhaatima ayaa la yidhahda. waxaana ku tusinaya in saa xusnu lkhaatima la yidhaahdo xadiiskii nabiga sala allahu alayh wasalam imaam axmed iyo tirmidi iyo xaakim iyo qayrkoodba ay wariyeen oo nabigu yimi xadiiskan anas baa warinaya ibnu malik radiallahu canhu. nabigu wuxuu yidhi idaa araada allahu bicabdihi khayran istacmalahu. ilaahay hadduu addoonkiisa khayr la doono wuu isticmaalaa. markaasuu saxaabadu waxay dhaheen kayfa yastacmiluhu, seebuu ilaahay addoonkiisa u isticmaalaa? markaasuu nabigu wuxuu yidhi waxaa loo baahan qofka muslimka ah inuu mar walba uu ka digtoonaado uuna cabsi mar walba ku taagnaado in khaatimadiisu ay xumaato oo qofku uu aada uga cabsado ilan ma aanu ogin waxaan ku dambayn doono oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maaragtay qadarkiisa iyo wuxuu noo xukmiyo ilaahay baa garanaya. marka inuu qofku mar walba uu ku dadaalo khayrka oona ka cabsado in khaatimadiisu ay xumaato saasayna salaf jireen. walidaalika buu nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu xadiid ku sheegay waxaa laga yaabaa qofku inuu ijtihaado oo dadaalo oo daaco la yimaado oo macaasida uu ka fogaado muddo dheer oo cumrigiisa ka mid ah, laakiin inta uusan dhihin waxyar ka hor inuu yanqalibu amruhu inuu arrinkiisa isbedelo ayaa laga yaaba. oo see isku bedelayaa marka uu intaas camal samayn jiray oo khayr ka qayb qaadan jiray, dacwada ka qayb qaadan jiray, baaltooga iyo duruus ka qayb qaadan jiray, salaadaha ka jiray. marka u dambaysa waxay ka hor baaxayaan inuu ilaahay ku saleeyo sayi-aad iyo macaasi iyo dembiyo iyo dulmi iyo waxun ilaahay inuu ku saleeyo oo saa ku dhinto. hadihi suu lkhaatima walciyaadu billah. walidaalika uu nabigu wuxuu yihi xadiidkaas waa inuu soo maray saan rajeynaya 40ku ku qoran yahay وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. قفك وحسن عمل كأهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. إلا جنبي وضع على بالوجه ذا جنبي وضع قدر كذا بعوضح يعني يحير يتصل من كور ويسبق عليه الكتاب حر مرية قدر كذا وقدر قفك عنيسا قف على الخير لأسن نقول فيعمل مساسوح السنين بعمل أهل النار. عملك أهل النار سنينية مركز بديله يا مسلمين وغيره إنه يظلم كدله وحال غيره إنه نعرف معاصي قاله شرك إنه قاله إنه قتل بطير الحق إنه قاله
إنه نعرف حلبية هذا مخدرات الدنبية واجبات وكفر هذا إذا كان كان باخذ على فيدخلها هذا النبي الجرية متناسب الجرية الله سبحانه وتعالى مثل استفين في المامها يكفر وناكسا من أهل الجنة وقلت المامي آد وعبسدان وإسكدران خوف الله كبقيان هي عمل حياتيان الله سبحانه وتعالى سورة المؤمنين وقدس المؤمنين تشعرني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون تلماها ذكر المؤمنين تألمه وقوة إلى من خشية ربهم مشفقون إلى عبد وبقان الله سبحانه وتعالى إلى أن يورميان ربي قول ممشر الجيران وشركي ورحمة رسول الله إلهي إله يسقصص كي يشوف أصبح سبايا وإلهي يمحبك بحيان فبقى لماذا قلوبت انت عمل وناجع أي سنين أيها دراء قلوبهم وجلة قلوبته يبقى يعني وحي يمر بحدث يدفتوني أي كتشيان وحي يكبقى يعني أرمى ماركتي كتاب كين وغرمري أرمى ماركتي أسنبري حتى أرمى مارك مروا وضع على إلهي أي كل دين أولئك يسارعون في الخيرات هذا حيث كلمة إن خيك أدك ديان مرنا لأنه اسمه قفل هدو فطور يقابين يمارك وعلى الشيطان يكفى ينسي نفع مارك بسوء مرة كذب ومارك تقدمك كرين مرة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون خيرات يناجع يؤدك ديان ويترتمان ويترتمان فحاولي بلسكي هذا سيري الأخيرين أصبع عاية مروا بعض سيئة كتبت أو ذكر هذا سيري الأخير يعني عمر أم علي ربك 10 المبشرين إلى تابعينتي هذا تاريخه الأخير سيارة دون ولم يوحظات يوم الولسان يوم الولسان أي هكذا أو طبق هذا تبتين خاتمة بسائل حماته مركا وحلو بني مركا إن يقول جواله إن وعمل كصالحة وكود جواله يطاعه إلهي مروا البنو الطوبتكين يعني هو يمانتي مروا بطوبتكين إلهي الانجيل بتابعي استغفر الله سبحان الله ذكر إلهي بني الطوبتكين هذه أعمال شؤوناكسن بمثال مركا حسن الخاتمة وأن قفك إلهي وافتيه معافيه مكسبيه وعالم إلهي ألفويه طوبتنا إلهي أسراله وعن يوضع يقفك مروا هذا حذر والدكتور وبقى هذا نعم قف مكي الجيري وعاش وسارين احتداثه مركز كروح اللي بانيه إن أبديه جانب كرجاه أبديه هي معركة إلهي ظن وناكسن إباليه لكن لك عادي ليهي قفك مسلم تحلوه الجرب وقدوره الرجاء والخوف كاسوي فأساسا ليه بانيه مركا نبيه صدحات وحكت المعون وحوي على مدها اللي وقفته اسم الخاتم محيي على مدى مجرى يا واحد تصيني قفك عن إيكرنا الله لقفك خاتمين سوي وناكسني محيكه أني مدى دليل كالسحدة وقصة عروري وحوية وعلامات حسن الخاتمة ولدي كر الله لقفك إن شاء الله تعالى خاتمين سوي وناكسني ولما الواحد المدى الدليل كي تدعي وحوي الاستقامة حال الحياة قفك مكي النوراء أدوها قف مستقيمة فراديس فرائد ويبتا قف مدنية يقف ناكسنية قف وصاق انتو الصلاة دائما زكية الدحينية أدوصاق انتو المسلمون شهداء الله في الأرض وهداء لها الله يهدد حسن خاتمة كل هو خير كتير كل قف وناكسندوها هذه من علامات حسن الخاتمة من علامات الحسن الخاتمة وهي يامري الاستقامة حال الحياة نطلب أن يراقب كهدوها قف مستقيم وصاق انتو وعليه كرامدات وعلامات أكيداً ووحوك بيان وعلامات شرعي وأمري إلهينا سبحانه وتعالى عندما كتاب كسر عليه نبي إبراهيم عليه السلام لكو أدر دارمي يعروتي سياطولها يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون علامات كلا آيات شرة وخفك مركو إيمانيو معركة كسر ظاهرة وقارنا إساءة كلية أيها أركا قفك إيمانيو قارنا ذاتك عكتي سيجوغة
waa laga yaabaa inay arkaan. marka calaamaadkaas culimadii salafka waxay dhaheen waa mubashiraat bay dhaheen, mubashiraat, laakiin qatciyaat ma wax go-an oo la dhihi karo alla qofka khaatimadiisa way hagaagtay maaha. laakiin qofka haddii markuu dhimanayay ay saa nooga daahirtay alla wax bishaaro fiican baa la dhihi karaa. ay culimada ay ku tilmaameen mubashiraat. mubashiraat waxa weeye wax qofkaas maaragtay bishaaro ah oo wanaag inuu khayr ku dhintay maaragtay laga fahmayo markii cinda al-ixtidaar, marka qofka mawdku uu ku soo xaadiro. calaamadahaas way badan yihiin, calaamadahaas way badan yihiin. taan hore sheegay qaarna qofkaa lagu soo ixtidaaray ayaa arkahaya markii malaa'igta ay bishaarayso sida ilaahayda uu yiri subxaanahu watacaala ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun. qof isaga arkay malaa'igta marka u bishaaraynayso, malaa'igta muuminiinta u bishaaraysa. culimaduna waxay dhaheen markii aayadda fasirayeen muuminiinta malaa'igta waxay u bishaaraysaa cinda ixtidaarihim marka mawdku uu ku soo dego oo ay dhimanayaan, wa fii qubuurihim markii qubuurta la geliyana way u bishaarayaan, wa cinda bacthihim min qubuurihim marka hadhow qubuurta laga soo saarayana way u bishaarayaan. mar walba waxay ku dhahayaan, waxay ku dhihi doonaan anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun. xadiis saxiixaynka ku sugan bukhaari iyo muslim oo saxiixa ayaa umulmuuminiin caaisha radiallahu canha waxay nabigu weydiisay oo aayaddaa fasiraya baa nabigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam man axaba liqaa'a allahi axaba allahu liqaa'ahu waman kariha liqaa'a allahi kariha allahu liqaa'ahu. qofkii ilaahay la kulankiisa jeclaada ilaahayna wuu jeclaadaa inuu la kulmo. qofkii karaasada ilaahay la kulankiisana ilaahay wuu karaasadaa la kulankiisa. markaasay waxay tiri nabigan weydiinayo oo qofkii karaasada ilaahay la kulankiisa ma mawdkaabay tiri yaa rasuulallah kullunaa nakrahu almawt, qof walba dhimashada wuu necab yahay. markaasuu nabigu wuxuu laysa kadalika, saas maahan, walaakina almu'mina qofka mu'minka ah idaa bushira biraxmati illahi wa ridwaanihi wa jannatihi markii loogu bishaarayo malaa'igta ay ugu bishaarayso ilaahay jannadiisa iyo raxmadiisa. وآيات القرآن كذلك أن أخيهم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. مركو قفك مشنك الله بشاري إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله إلهي لكل كسك على رأي جنته. وإن الكافر قفك قال كان إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. إلهي وكامتي معرفة إلهي إنه عريسانه لو بشاري عقاب إلهي وبقيا مقاسو إلى وحو كراسدا إلى إن لكم إلى هنا مقاسو كراسدا لكل كيسي دفق بحاس قفك علينا قف خير لما مركا علامات كمركا مبشرات كأه وهذا يعني يمكن شيء وحن رداية علامات الأولى وحسن الخاتمة وحي قفك مكي ونورا إنه قف مستقيمة. لكن علامات كلا أو مبشرات ما عرفت من الجنين من مضح إن قفك عن علامات أكو عرقنا طبعا وأهل الجنة لأنه وقتهم عند أهل السنة والجماعة لا نشهد لأحد قفنا أوام الخاتك عمين إنه أهل الجميع إلا كوي ما عرفتنين حول أوام الخاتك عماهن. قفنا أوام الخاتك عمين إنه أهل النار إلا كوي قرآن كإلهي يسمى النبي أي كبرين أهل النار يهمهن وأقرأت سمان مركا. لكن خير بأو رجينا قفك عن علامة نسوش يجدون الواركو خير بأو رجينا. هذه علامة تدل على حسن الخاتمة أي ضحية وبشارة الدون كله سهور مريم. علامات البدين علماء قاركود إلى يصدن يكبر بجاسيا لكن قارب المكشفين عاو ما يشيكرنا انت أولي بأحاديث صحيحة يكسو عروفتي. علامات الرئيسة ومن علامات حسن الخاتمة وبشارة ونابسا وقفك سوى صعب كتير أو كل انت لديكره ما شاء الله إلهي وحورينا على إنه حسن خاتمة وكل انت وحاول يقفك إنه انته يسوى كل واقع شهادة. النطق بالشهادة عند الموت. معاذ بن جبل رضي الله عنه أيا وحي النبي أيا وحي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث كاتو حوري أبو داود بوري. أبي سعيد الخدري حديث في إمام مسلم وصوت علي أبي سعيد الخدري وريه من الوحي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وحد أقول لك إن كان رسان وحد رسان ميرين ويسي عروض القرآن كما كله ميرين يوكل. وحد رسان موتاكم
موتاكم مركا إنسان معها تذكينا لمنا عند الاحتضار تاسي تفسير المفسرين معها موتاكم كوين إنتي معها تتبع وحاليا أن يفهمان تلقينتان لقينوا وطوى تلقينتا لو النوعي تذكينا يرير مقرن إنسان تذكي وين بقرن الصومالي وكايلان عالم كا قفكم مكو لنتو وصوى عاصو شيخ كوفيد وين بالوغيرا وكتاب قابلوه شيخ بدنا العقب على السيا مركز واحد ده شيخه تلقينته وآخره وقف العاصي مركز بهيا بعدين ممكن ينكير كل ما من ربك هذا كلها واحد كلها يا ربي يا الله من نبيك هذا كلها واحد كلها يا نبي يا محمد ما دينك هذا كلها دين تدوى إسلامك هبله وصاص كله إسكاري واحد وآخره واحد بدعوي تلقين تنسيه لبنه عوي تلقين سنة وحديث كهداية آمينكو أخري هذا واحد كهر وحديث إمام مسلم صوصار حديث أبي سعيد الخدري ونبي لقين موتاكم لا إله إلا الله ذاتكين بمنية ولقين لا إله إلا الله أميرية يا تاسوا سنة إذا اللي أميرين علماء واحد شراح لها قارنا واحد سب الرفق يلين سب ترتيب أيها يذكر الشهادة عند الموت مركو نفسه أي كسش الرقلاء نفسه أديسه أيها أكتس الوضع يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سوء سنة وقبصة انتو وحصوصته تاسع علماء قارنا واحدين لا داتا حتى هنا ده ورده إلا يلعبه ورده لا إله إلا الله ده لا إله إلا ده قارنا واحدين ما هدي دولة دولية ووبقنا وحده على دينه أكتس الوضع لا إله إلا الله لا إله إلا الله المهم تاسوا ومثلا يعني قرب السيئة وفانتي لكن واحد سوى فقصين إن أنا أكتس الوضع أنا ده لده لا إله إلا سوء لقب صدى سجينة سوء لقب صدى أي لو أو غمق أو واحد يوحى حصوصين يا أعماج سارحة يا خيركي يا وناجسي إلى مرة كلا إحنا وحسن ظني بربي إنه بديع له بعين وحتى الحصين ما كسير من لا إله إلا أن أكثر وضحية مركا علامات أخرى من علامات حسن إله إنه قفك خاتمين سجاتي علامات مبشراتك وحكمت إنه أنت يسوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله سواء إنه أنت تاس إنه أنت جابر نوحه الحديث كما إمام مسلم أوريي وحى النبي كما قال صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث انتو بمن قدح مع المذكور يقول سواء لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله ظن قفكي نيوسن بمن إلا مكو بمن ظنك إلهي هذا شيء طبعا قفكي موت فجأة سكو إماموية ما سوى سكرادي أو سريع جيران أو معركتي مركز وكله حلو بعين قفكو وخير نفتي سو شيء إله غفور رحيم ينكون رأيه لكن نركو أدونك شو عافمات قبي معها إنه سيدكتلو ما بحنا طيب تلقينت كله أو نوع كله أو يو بدعاء وان شيء من وان قفكي مركو انت كدي ولا عاصو إلى هذا لو سافر تاس واحد معنا سكيل عشقة طيب علامات اللوات أو من علامات حزن خاتمة وحوي وقتي وحير بيهاري هنا الدور سيوي إنه قفكو دينتو مركو ديمانيو إن لبن كيسة جبين وحلي دفور ولا دفور أما ميتكون إن إيد كلمة مركو ديماني إيد وقتي إنه نقضه قيان إنه نقضه ومن علامات حسن الخاتمة حديث بريد بن الحصيب صحابي ليعنوي كوري وحوليه أنه كان بخراسان سوى ماشي خراسان لا تشويه أيه حصوص يعطي من مسلمة أو جيران مركزوه أركينك يؤمنية أو أبن كيسة ماشي دفور كيسة وتيك ماشي قراء وإذ كداعيه مركزوه يقول الله أكبر إلهي ذا وين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ذا حكم مغرب يقول سوى موت المؤمن بعرق الجبين قفك مؤمن كاوحو كل كاوسوى دفور كيسة وإذ كداعي عرق وإذ حديث كاسنا وحاولي إمام الترمذي النسائي المناجي وأحمد والترمذي وحسن بن شيخ ألباني حديث هو صحيح ويرمار وكا علامات اللوات وحاولي سو معرفتي دفور كيسة ماشي وجهي ولا بناع أما تنكو أما ميت بناع كاملة وإذ قيان إنه كيما مركا نفتك السباحيسو وعلامات مبشرات كتسين حسن الخاتمة أي كمديهين علامات السدحات ومن علامات حسن الخاتمة أو حديث تنقص أروحوية الموت ليلة الجمعة أو نهارها قفك إنه دينتو معنين جمعة أو حنين جمعة سوق العالي إنه دينتو
ogaada hadi qof mujrim ah malaayiin mujrimiin ay gaara dhimatay jumca iyo maalinteed ayna qofkan kana daay soo sheegay qof mustaqim aha oo khayrka ku toosan oo aha oo macaasi ka fogaado oo aha oo qof khayr looga bartay oo aha hadii isagoo saas aha oo jumca ilaahay ku soo aadiyo waxaa leenahay hadi bishaara yaa leenahay wadartana xadiiska Abdullah ibn Amr ayaa daliil ah oo ka warinayo oo nabi sallallahu alayhi wasallam ma min muslimin يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر حديث الترمذي وريي شيخ الألباني مسائل الجامع أيوكت سرعي وأنا حديث صحيحة مسلم ما من مسلم بيني مسلم مجره ما من مسلم مجره يموت لنا يوم الجمعة ما من جمعة أنا ليلة الجمعة أنا ليلة الجمعة سوق ليس أيودك يا أدو ساس مسلم ما أغادية انتي نيدغيسانيسا من هو المسلم نبي أيها تعريفية قف كلمة نوع تعريفية على موقعها نبي يحيي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه بخاري مسلم وريه نبي يحيي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه نبي يحيي قفك مسلم كأه ومن سلم المسلمين قفك مسلمين أي كأمان قلان وكنوات قلان من لسان عرب كيسة ويده قعنتي marka haduu nin intuu bandooyin isku soo oo Mexico soo galo oo ilaa jumca waa shahiidaya oo muslimiintina baabi'iyay kaasi malaha maaragtay calaamadan shaqo kuma laha ma min muslim majir yamuutu geeriyoonaya yawm al-jum'ati maalin jumca أو ليلة الجمعة أو هنين جمعة سوقرية إلا وقاه الله فتنة القبر هذه علامات مرتبة وحوي صدحات ومن علامات حسن الخاتمة قف مسلمة ومن منينت أي كنوات قلين ومع الخير وضبطي واجبات في طاعة إله فلوني معاسي كفضاني مسلمين تعرف كيف كنوات قلين حنان أن بس اسكدرين maaragtay aan dadka caayin haddana haduu alla ku roonyahay gacantiisa iyo adinkiisa laga nabad galay qofka dumaalkeedu inta khayr baa rodeynayna علامة أفراد الاستشهاد في ساحة القتال إنه قفك وكل جهادك حق صحة شروط سوء أصوي مسلمين تدعي استغالين معركة متي إمامك مسلمين وأمرضتك مسلمين إن جهاد لقلوا ومركز كعربي معركة أنا دعوة الإسلام كهور استاذكي أنا وصل الإسلام كوضن كودو كسو دوشي مسلمين كأولاد تقالنا هيان أو جهاد شروطيسي أركانتيسي أو صدوئي هاي أنا هين جهاد كوحية كلية إسكفصرتي مسلمين كلينا أي معركة أي مستدين كتلمانتي ما أنكاد كاد جهاد ما لكن جهاد كحقه قفك هدو كل انتو إلهي وحليه سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين مجاهد كبتع ومجاهد سوراليس كعلم مسلمين كل على إنه الجمع من الفزع الأكبر مالك الفزع الأكبر ودفك وين وضدك العريان معركتي يوم يسير المرء من أبيه وأمه ومالك إلهي أوتي المامي ومعركتي تي المهود ديجيسو مالك أستاذ وحويه لقت صارين وحده ربلينا وحده ما يستان ويوضع على رأسي تاج الوقار الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها وحالو صاريا كرام بمرح لو صاريا الدنيا كلها كخير بدن يوحب يالبن ويزوج 72 زوجة من الحور العين وحلو قوريا النبي صلى الله عليه وسلم لبيت ضوات حور العين ويشفع في 70 من أقاربه فضوات ما عرفت قرابة أنا وشفع قابة marka waa mujaahidka xaq ah oo ilaahay ka mujaahidka xaq ah dhabta way midka helaya ajarkaas calaamadaha kale oo ku tusinaya xusn al-khatima waa badan yihiin waxa kamid ah qofku adiladooda waan tirinayaa kaliya maadaama aan waqtiga aan ugu talagalay oo gaabsiga yahay adiladooda
kuwaan sheegay dhan adiladooda waxa weeye muttafaqun calayhi ama muslim baa weriye ama bukhaari weriye ama labadooda weriye ama xadiis kaloo saxiixa kusoo arooray. waxaa kamid ah qofku inuu ku dhinto guri inuu kusoo dumo hadim alhadim. waxaa kaloo calaamadaha xusn khaatimada kamid ah haweenta dumarka ah inay ku dhimato nifaaskeeda xadiis saxiixa kusoo arooray. nifaas waxay dhiigka dhalmada umal raaca meesha aan ka dhahno iyadana waxa ay xakmita hadday gabadha muslimada ah ee mu'minada ee mustaqiimada ah markii ay dhalaysa ee umul raacdo min calaamaat xusn khaatima ayay kamid tahay. waxaa kamid ah calaamaat xusn khaatima xadiis saxiixa isna kusoo arooray inuu qofku uu dab ku dhinto dab gubasho ku dhinto ama guri baa ku gubtay ama gaari baa ku gubtay ama wax noocaas oo kale inuu qofku uu dhinto calaamad xusn khaatima isagoo jihaad aaday laakiin aan dagaalkii gaarin min calaamad xusn khaatima ayay kamid tahay. xadiis baa kusoo arooray min calaamad xusn khaatima waxaa kamid qofku inuu daacuun u dhinto. daacuunku kalooraha way xanuunka la yiraahdo isaalka iyo mataga qofku uu biyo baxayo shubanka calaamad xusn khaatima ayay kamid tahay. xadiis saxiixa kusoo arooray bukhaari uu wariyay iyo qayrkiis. waxaa kamid ah calaamad xusn khaatima qofku inuu caloosha u dhinto bidaa ilbatni buu nabiga bidaa ilbatni yani shuban baa inta ku dhacay ayuu dhintay calooshiisa ayuu dhintay ama ay xanuuna caloosha ku dhaca culamada qaarkood ay dhaheen ya waman maata fi lbatni fahuwa shahiid. imaam muslim baa weriye xadiiskaas imaamu axmed iyo nisaa-i iyaguna waxay xadiiska wariyay nabigu wuxuu yihi sal allau alay wasalam nin baa loo sheegay caloosha u dhintay markaasuu nabigu wuxuu yihi sal allau alay wasalam man qatalahu batnuhu falan yucadaba fi qabrihi. qofkii uu dilo calooshiisu qabrigiisa lagu cadaabi maayo buu nabigu sal allau alay wasalam. min calaamaat xusn khaatima waxaa kamid a qofku inuu qaraq inuu ku dhinto badda inuu ku maashoodo badda laakiin iska ilaalshayaa dhalinyaradan oo iska soo yaacayso badaha isku soo tuuraysa kuwa waxaa laga yaabaa qaatilu nafsi inay noqdaan baa laga yaabaa. qaati hadhow intaan soo tahriibtid oo badda ay ku liqdo hadhihin shahiid baan aha ama wiilkayga shahiid buu ahaa baddaa liqday. waxaa laga hadlaya waxa weeye dad muslimiin oo iska baxay oo baddaa iska raacay oo badii maaragtay ay la degtay laakiin dadkan iska soo yaacahayo oo marka horeba iyadoo looga digahayo oo safiina xuna ama qaarib yaroo la ogyahay halaka ay tahay. walaa tulquu biaydiikum ila tahlika buu ilaahay yiri subxaana watacaala. qofka muslimka inuu naftiisa dilana looma ogola. qofka inuu mucarad naftiisa khatar u geliyana lama rabo. laakiin qofkii caadi maaragtay ama tog uu qaado ama balli uu qaado ama barkad ku dhaca ama bad ku dhaca oo qaraq maaragtay uu biyo ku dhinto isagana min calaamaadkii xusn khaatima ayay kamid tahay. gubashada waan soo sheegnay iyadana. waxaa kamid ah qofkii u dhintay bidaati aljanbi waxa culamada kufasireen shuraaxda axaadiiska qaarba waxbay kufasireen laakiin waxay u badan tahay daatu janbigaas wasaaxibu dati ljanbi shahiidun buu yiri nabigu. wasaaxibu dati ljanbi shahiidun datu ljanbigaas janbigu waa dhinac marka shuraaxda axaadiis hadaad axaadiiska abu daawud iyo nisaa-i ibnu maajah ayaa wariyey waana xadiis saxiixa. haddaad shuraaxda u noqotid qolob waxbay kufasireen laakiin waxay u eg tahay allahu aclam bahashaan abandikiska ingiriiska lagu yihahdo carabigana azaa-idada lagu yiraahdo talyaanigana soomaaliya fitijiidada ay dhihi jireen oo qofka dhankaa midig oo hoose jambiga dhankaa hoose ayaa laga qalaa. waxa weeye zaa-ida weeye oo xiidmaha hoose meesha ay ku dhamaato. xoolahana way u dhintaan qanja ayaa la yidhaha xoolaha way u dhintaan. taa inay tahay way u badan tahay wallahu aclam. qofka u dhintay isna waxay ku tusinaysaa ay dhaheen culamadu xadiiskana sida kusoo aroortay min calaamaati xusn khaatima. min calaamati xusn khaatima waxaa kamid ah inuu qofku uu dhinto isagoo difaacayo maalkiisa iyo naftiisa iyo ehelkiisa isagoo difaacaya. man qutila duna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duna ahlihi fahuwa shahiid man qutila duna diinihi fahuwa shahiid waman qutila riwaayad kale ahayd waman qutila duna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duna damihi fahuwa shahiid. yani naftiisa isagoo difaacaya qofkii la dilo. xadiiska cabdillahi bni camar radiallahu canhumana wuxuu aha samictu nabiy sal ly slam yaquul nabigaa maqasoo leh waman qutila duna maalihi fahuwa shahiid rawahu lbukhaari wa muslim. qofkii isagoo maalkiisa difaacanay nin baaba isoo hororay horor dukaankayga igu soo galay markaasaan maalkaygiiaan difaacana dukaankayga ilaadsanaya markaasuu midihii daray waa dhintay. qofkaas khayr baan u rajeynayna laanna maalkiisu difaacaya. saas kale qofkii naftiisa difaacaya saas kale qofkii maalkiisa difaacaya
isagana maaragtay waa shahiid. wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis uu imaam muslim wariyay Abu Hurayra radiyallahu anhu uu nabiga ka maqlay waxa jaa rajul ya rasuulullah sallallahu alayhi wasallam nabigu yin faqala ya rasuulullah ara'ayta bal kawara in jaa rajul yuridu akhdha mali hadun yimaado roomaalkii inuu xoogo qaala markaasuu nabigu fala tu'tihi malaka maalkaaga iska sii markaasuu ninku ara'ayta in qatalani bal kawara haduu igula dagaalamo qaala markaasuu qaatilhu la dagaalamo markaasuu ninku wuxuu ara'ayta in qatalani bal kawara markaan la dagaalamo haduu dilo markaasuu nabigu faanta shahiid buu yiri qaala markaasuu wuxuu ara'ayta in qataltuhu kawara hadaan marka dilo huwa fi naar buu yiri waa fi naar buu galaya oo fi naar taas galaya macnaheedu ku waaraya haduu muslim aha waxa la muslim zaalimin oo lagu cadaabaya yani way bal waxa uu gaal ahaana awalba gaal buu ahaa naarta hor isi galaya wallahu a'lam. طيب علامات حسن الخاتمه arrimahaas aan soo sheegno dhan baa kamid ah axaadiis baana ku soo arooray muraabadatu fi sabiilillah qofku inuu dhinto isagoo jidka ilaahay difaac ugu jira oo maaragtay muslimiinta difaacaya inuu dhinto min calaamات حسن الخاتمه oo kuwa muraabadada iyo khayrkood soo galaya waxa kamid ah qofku inuu dhinto ala amal saalix isagoo amal saalix ku jira oo tukanayo kale dhintay isagoo ka bixinayo kale ayaan naftu istaagtay isagoo walaalkiis rabo inuu soo booqdo ayaa shil ku dhacay isagoo amal saalix markaa mutalabis ku ah oo gacanta kula jira wanaag kula jira ayuu dhintay hadi min calaamات حسن الخاتمه ayay kamid tahay min calaamات حسن الخاتمه. من علامات حسن الخاتمه waxa kamid ah inuu qofku dhinto oo uu dilo boqor ama madaxweyne zaalim ah jaa'ir al-imam al-jaa'ir man qatalahu al-imam al-jaa'ir Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ayaa wuxuu leeyahay qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri afdalul jihad kalimatu adlin riwaayad kale lafti kale wuxuu ahaa kalimatu haqqin inda sultanin jaa'ir aw amirin jaa'ir qofki amir zaalim oo dilo علامات حسن الخاتمة أي كميتة يا علامات حسن الخاتمة وحنقصوا ختمينا علامات عن صوشة طبعا مبشرات وهي اللي قفك عدو وكل انتو خير بأخر الجينين لكن معايا دماغا إن أنو لنا أهل الجنة وهي ما أهل الجنة أنا يعد الجنة هو مخاتك عمين لكن نرجو له الخير كي معصية الدين بكل انتنا نخشى له ما لنا ووعب سنينا أسباب حسن الخاتمة أيها الإخوة وأنكو ختمة وحوي أسبابها كان حسن الخاتمة مدى أمور وحوي إنه قفك التزامه طاعة إلهي يتقوى إلهي أرنك أمور تقوى إلهي نوحي توحيدك إلهي قفك توحيدك كله إلهي إنه عابده إخلاص إنه إلهي عبادة أخالص إنه ريها يستوسك كفو هذا إنه قفك أمر بكدك توناده وما عرفتي إنه وح محرمات وكله inuu qofku uu mar walba noqdo qof u degdega toobada ilaahay iyo macaasida iyo ka fogaada uu ahaado ayaa loo baahan yahay taqwada ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha alladina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun hadhimanina idinkoo muslimiin ma ahaan qof hada isagu gacanta ugu jirto ma jirto laakiin macnuhu waxa weeye mar walba diinta ku dheganaado waay macaasidana ka fogaado qofku waa inuu ka fogaado kabaa'irta iyo muubiqaadka xataa saqaa'irta inuu ka fogaado laana al-israaf ala saqaa'ir kabaa'ir bay lamid tahay tatahawal ila kabaa'ir sida culimada ay sheegeen kasratu saqaa'irna maca cadam at-tawba wal-istighfar waxa ay keentaa culimada haddii qofku saqaa'irta badiyo uusan toobadna ka keenin raana cala alqalbi qalbigiisa ayaa daxalaysta ya nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam iyaakum wa muhaqqirat ad-dunub waxa idin kaga digayaa dunuubta yaryar dadku ay xaqiiraan ay dadku waxa dhib male iska ilaaliyo waxa loo baahan qofka muslimka inuu mar walba jidka ilaahay uu ku toosnaado diinta ilaahay uu ku toosnaado ilaahay wuxuu yiri inna alladina qalu rabbuna allah ku yiri ilaahiyo wa allah oo ilaahay rumeeyay thumma istaqaamu marka kadibna jidka ilaahay ku toosnaaday tatanazzalu alayhim almalaa'ika malaa'ika ayaa ku soo degtay inda mawtihim qaa'ilina lahu iyo ku oranaya waxay ku dhigi doonaan alla takhafu haka baqinina waxa idin ka horeeya oo aakhiro iyo maaragtay iyo barzakha iyo qabriga ka cabsanina wala tahzanu haka murugoonina waxa idin ka dambeeya yadaad caruur iyo dumar iyo ka tagteen ilaahay baa tawalinaya wa abshiru bil janna jannada ilaahay ku bishaaraysa allati kuntum tu'adun taas oo leedin yabo jiray waxa loo baahan qofku mar walba inuu badiyo
ducada inuu badiyo oo ilaahay uu ka baryo subxaanahu watacaala inuu iimaan iyo taqwo iyo ilaahay cabsidiisa uu ku dilo. waxaa loo baahan qofku inuu mar walba oo maaragta waxyaalaha asbaabta keenta xusn khaatimada inuu qofku mar walba xasuusto dhimashada, inuu xasuusto inuu qofku ka cabsado asbaabtii aynu soo sheegnay asbaab suu ilkhaatima oo ay kamid tahay inuu qofku ku dheganaado macaasida iyo waxa taswiifu tawba le. taswiifu tawba waan toobad keeni doonaa xubu dunya qofku in adduunka jeclaado in wax qofku waxa ka fogaado asbaabaha qofka maaragtay u keena xusn khaatimada waxaa kamid ah almujaawadatu calaa dikri illah, inuu qofku daa'imo dikriga ilaahay dikriga ilaahay iyo acmaasha saalixa وآخر كلامه نبي لا إله إلا قفك أهاته دخل الجنة مروا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله. لأن الله ما يرسكم رياض شلبا كود عكر مروا بوا خير كاب إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى إلهي وينا وحن كبرينا إنه قدر أعماشنا وناكسا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها ما يبقى جعل اللهم الله اجعل خير أعمالنا أعماشنا مدى وخيبا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك إلهما المها يغنى مالنك وخير كبير مالنك قرأت منك بك جعلنا مع الذين أنعمت عليهم في جنتك إلهنا لك وأعنع ميسي ونفسنا صالحين في شهادتي أنبياء إلهي نبي محمد معيسى صلى الله عليه وسلم انت أيام كسو كوبيا كلمة دي وحن قدري أفضل دقيقة يبقى تقريبا إلهي وحن قدري سبحانه وتعالى إن نوع أنفعه إذن كان إن كذبوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذه أن خير شيء فمن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هذه خلل يزر لقدعنا فمني ومن الشيطان والله سبحانه وتعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.